السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان ولا لها كنت حنبيش وين سلامي. مرحبا بالجميع ودرسينا إها أولادنا من الولادة إلى 20 عاما. المهنة محيط أنت ما كدشان إلا أنت كوينادان oo ah darsi muhiim ah oo u fiican ubadkeena oo aan xuquuqda inagu leeyihiin hadii waalidku ula nool yahay iyo hadii dad kale ula nool yahayba. maanta waxaan ka hadlaynaa xifdu luqati al-umm lil awlad. ilmaha inaa u ilaaliso afkooda hooyo ay ku dhasheen ayana waa maxay barnaamij muhiim ah oo anaga maanta waqtiga aan ku jirno Soomaali hadana iyo duruuftana haysato ee dadkeena si u kala hayaameen in uu soo baxay jiil luqado kala duwan ku hadlaya afkii hooyana uu ka dhumay. taasna waa maxay hayto waxyaabaha aan wanaagsaneyn qaladka ah oo ka jira guriga xaqiisa. luqada marka muhiimka ummiga ah waa muhiim waa luqada cunuga uu ku dhashay waa afkii Soomaaliga ahaa waa afkii hooyo. maanta waxyaabaha dadka luqadaha ay saadaalinayaan afkeen inuu ku socdo inqiraad burbur luqada badan baaba adduunka baaba imaab ka tirmaday oo maxay maanta aan lagu hadlin. laakiin teen maanta waxa kala daadshada mutaakil luqad la cunaaya baaba ay soo sababtoo ah waa luqad aan la aruurin muddo inta dawladda la'aanta aan maxay dad inta hadii la aruuriyana xataa aan sidii la rabo u faafin marka mujtamaca Soomaalida soo u kala faafayna ilmihii xataa maanta luqadoodii hooyo inay qaar badan kamid aysan garanaynin. marka waxa arkaysa goobaha barashada marka joogto arday cunug yar oo Soomaali ah oo maxay ahayd oo afkii Soomaaliga aqoon مثلا Soomaalida u qaraxdo dhulka Carabta u qaxdo Yemen oo kale ilmihii ku dhashay ama ku barbaaray ama ku inta kala qaaday afkii Carbeed oo Yemen lahjadii ku hadlaya ku kala Suuriya kaaga imaad hadana wuxuu ku hadlayaa afkii Carbeed ee Suuriyaanka lahjada ku kala Qaahiro ku koray lahjadii Carabta ee Qaahiro hatta Carabiga u bartay hatta Carabi nahlo test lama aha fusxadii ah marka taas maxay marka cunuga waalidkii inuusan guriga afkii Soomaaliga isticmaalin حاجة هو ما محيط قربها كلا أنت عندك أف سويدش كهلاية أف نرويج كهلاية أف محيط دنمارك كهلاية أف محيط هذا ماشي وكبر بارا لقي وكهلاية كوكلا يقول I am Somali American I don't know English I don't know Somali ما أقانو كله أنا وحنا Somali American ما قرنا أفكي Somali ها ما كتار قرأت كاسية أسكال والدين تأسكال هي ماشي قف كبار قار والدين تقارو يقولين هذا إيجاله اللي أف Somali ما هو ربع إنه كهلا وغزو الفكري ما أنت الكون أسوأ قف كأنه لقدي سكفان أو بحياتك أو كحش هذا وده كان كلنا لا بالله قدرت وإنترناشونال قف واستعمالها ولقدي إنجليش كعلم وقريها لقدي كسوهيل جودا كله جهد له علمي إنه برتان وقسم سكول كي بالله جهد له لكن أديك أفك الصومالي يقولوا كبر ذاتك كلاك أو محيط أمرها كلا لد جنة هاي هندي أفكار هندي كلها ما كسرت قرصنا يعني كان كلا تكيان كم أفكيس هندي وأفكيس كيان لماذا لقد قبيل وكسر جده يكون هلا أديك الصومالي عنو قاعد ما دمبرين مركو أم كسوهيل كهلا أم إنجليش كهلا وحو شيء ولا فهمه يعني marka qaladka marka waxa caruurta guriga xilliga ay yaryar yihiin min hal sano ilaa 5 sano cunuga markuu hadalka bilaabayo iyo min 4 sano ilaa 5 sano si rasmi ah Soomaali ku barto wuxuu baranayaa guriga inaad ka joojiso luqadaha maxay ajaanibta ah inuu cunuga isticmaalo oo ku hadlo taas waa markii luqada cilmiga waxbarashada uu gaaro iskuulku ka kasbanaya bi'adu ka baranaya laakiin adiga ka waalid ahaan iyo qofku la nool yahay in guriga looga hadlo luqatul ummi ceebna ma aha in luqadaada iska dayacdo maxay waafad rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu warqadaha u kala diray umadihii adduunka boqoradii dawladihii kala jira waqtigaas muusan isticmaalin afafkay ku hadlaayeen wuxuu yiri sanadkan heshiis Quraysh la galay wuxuu yiri warqad diinta inaan faaf islaamku waa caalami waxaan rabaa inaan geeyo umadaha u qoro wuxuu u yeertay maxay hayto qof rasuul dad u diyaariyay magaalooyinka si kala yaqaano Ciraaq waxa fadhiyay dawladda Farisiya مجوسي فرس أفبرشيان حق وحافري الشام دولة نصرانية حق فرعون مصر وحافري دولة قبطية إيجيبت أنت اسمك محيته يا يقان أفارس موسى لهن يا يقان محيته رومانس موسى لهن يا يقان أفبصر موسى لهن لقد عربي وكقري تاس أفكي أسرع ويقان وكقري أيها ترجمتي أو وقف ترجمان الرادسة تانا محاوي إن إسلامك عربي وكقري أسرع لقد يسوء إلى شذي ودadka maxay ahayd oo diinteenu ku qor islaamku quraan carabi ku yimaado marka ilmaha luqad u horeyso baraysa carabi ka dhigto kale okay meeshu ku nool yahay wax ku baranayo luqad kale ku bato okay laakiin adiga ka waalid ahaan waxa laga baahan yahay ilmaha in afka Soomaaliga u ilaaliso meesha doonto ku barbaar meesha alla ku qadar ku nooshahay inaad luqadii cunuga hooyada hooyanimo taas waxay ku waajib ku tahay qofka maxay ahayd ku hadlaaya afka maxay ahayd afafka kale استعماله أما ودما كله أنتو محيط أو محيط وضنكي إهان الميس كوكرسناه وحاقي صحنون بدن تنساني كده عادي القوي الصومالي إن محيط توجا يسويرتي مكا قويس كي أفكار سواحلي يكون هاللاين مكا توجد سويرت أبيه وحد قال وضع قلي نمك توجد جورج سوا قلي مكا المهنا ما يقانن الصومالي مكا وحي كله الأب قرية قبصينها أب قرية قبصي أف سواحلي كله بابا شيء كبندق يكونه قبص قرية marka tuugadi way faahantay marka markay faahantay
waxay ka gaarsiiyeen intuu aabaha jaanis isan u siinin hal mar oo aabihii weerar ku qaadeen oo ah in maxay ahayd qoriga uusan qabsanin ay dileen gurigiina wixii yaalo way qaateen taas maxaa u sabab marka cunuga hadduu dhihi lahaa aaba qoriga qabso ama maxay ahayd aaba bastoolada qabso u dhihi lahaa ninkana nin ciidan u ahaa marka guriga meesha degan Soomaaliga oo marka maxay ahayd tuugada waa ka adkaan lahaa marka qoysaskii Soomaalida Tanzania deganaa marka waxay amar ku bixiyeen in ay maxay ahayd caruurtooda guriga dhexdiisa ay kula hadlaan luqada Soomaaliga ah afafka kale intana laga joojiyo oo marka cunuga guriga soo galo intuu waalidka la joogo guriga joogo afkiisii luqatul ummi uu ku hadlo markuu banaanka joogana ama iskoolkii waxbarashada ku maqan luqadaha kaleento oo marka maxay ahayd waxbarashada ku qaadanayo ama bi'ada uu ku nool yahay looga qaadanayo uu barto marka idan caruurteena aan u ilaalino luqatul ummi haddii afka ka dhumo dhaqankan uu ka dhumaya diintan way sii daba kacaysaa marka idan waxa isku xiran afka iyo dhaqanka iyo diinta ummadahana way ilaashadaan qofka meesha doon ha ku noolaado meesha doon ha ku barbaaro dhaqankiisa iyo diintiisa iyo afkiisa waa inuu ilaashada adaa laga rabaa marka waalidow iyo qofka la nooshay u ilaali caruurtaada luqadooda iyo afkooda guriga markay ku nool yihiin luqad kale oo maxay tahay dheeriyana waa bari kartaa wuuna u baahan karaa luqadaha caalamiga ah marka laakiin tan hooyada ah oo ku dhashay bar cunuga una ilaali intuu ka weynaanayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.